السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج قابن وأنا كو قادا لقي دونه قضب كأومهم سن حلك قادس الجرمال إساك سو كولوني يحيلد عصب غير فهم حلك قادس الجرمال إساك سو كولوني يحيلد عصب غير فهم maxay uga gol leeyihiin maxayse targetkoodu yahay sida aan wada ogsoonahay ama aan ka wada warqabno waxaa saaka aroornimadii xilka laga qaaday 3 wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka. 3 wasiir ma ahayn kuwa xilkooda gudan waaye, ma ahayn kuwa shaqadooda ay liidato, ma ahayn kuwa tayada aqoontooda ay tahay mid hooseysa, laakiin waxay ahaayeen 3 wasiir oo howlkar ah. Okay, markay intaa joogto maxaa dhacay? sideedaba adduunka markii aad rabto inaad dabaq ama meel sare fuusho waxaa la isticmaalaa salaan ama jaranjaro sida aad u taqaano. haddaba laba ka mid a wasiirada la bedelay waxa ay noqdeen salaankii ama bridgekii looga gudbi lahaa caqabadaha hadda taagan. haddaan soo qaadano Yuusuf Garaad wuxuu noqday bridgekii looga gudbi lahaa caqabada ay ugu soo horeyso arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur, tan kale booqashada farmaajo ee dhuusamareeb. hagaag okay, ninka lagu bedelay ma noqon karaa nin intaasoo dhan furdaamiya farmaajona u gogol xaara inuu dhuusamareeb siday taa loogu soo dhaweeyo bulshadoo dhanna uu hoos keeno ninka la yidhaha farmaajo. tan kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninkan oo aad isugu dhow xagga haybta ma noqon karaa nin ka hortaga hagardaamada in Cabdishakuur? iyadana waa su-aal meesha taagan. sheekadu waxay ku soo hobanaysaa waa su-aal da-weyno madaxa daalinayso kollaytaba aan aragno. barnaamijkan iyo filimkan wuxuu bilaaban doonaa inta ka dambaysa 8 January. filimaanta cusub ee bilaaban doonta 8 January haddii allah awoodala uu yidhaahdo. hagaag juuxa aan soo qaadano. juuxa arrintiisa waa iyadu arrin muhiim ah. juuxa ninka lagu magacaabo wuxuu ahaa sidiisaba horta wasiir aad u howlkar ah, shaqadiisuna ay aad u hufan tahay. hagaag ninkan juuxa la yidhahda marka iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kuwa aad isugu dhundalola ma aha ama connectionkoodu aad u fog yahay. macnihi haddaan halkaas sii jirciyo waxa weeyaan shalay markii xukuumadda lagu soo dirayay maadaama ay wax lagu qaybsanaya 4.5 kama iman dhanka Gaas. waa nin iskiis ama calafkiisa ku helay jagada. haddaba waxaa laga fursan waaya in isaga laga qaado wasiirka arrimaha gudaha, cawad laga dhigo wasiirka arrimaha dibadda oo loogu dhawaado Gaas. hadda bal eeg, waa ninka aragtay oo diyaarinaya booqashada 8 January, haddana kalsooni buuxda laguma qabo oo waxa weeyaan Gaas waxba kama dhaadhicin karo. waa in la helaa nin wax ka dhaadhicin kara. balse aniga su-aashan isweydiiyey waxay tahay 8 January 4 cisho gudahood ma ka dhaadhicin kara cawad wax walba ninka la yidhahdo Gaas? waa maya. marka barnaamijkan isagoo faahfaahsan insha allahu tacaala waan idin soo gudbin doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.